haddaba waxaan rabaa marka qaybtan inaan kula wadaago coinska ay tahay inaad maalgashi aad ku samaysato ama DCA aad ku samaysato ayaan rabaa inaan kula wadaago muuqaalkani maanta. haddaba marka waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalkani ilaa iyo 10 coin ayaan kula wadaagi doonaa oo weliba qaarkood mar dhow la soo geliyay Binance, qaarkoodna weli aan la soo gelinin ayaan kula wadaagi doonaa inta muuqaalkeena inoo socdo. haddaba marka haddii aad danaynayso marka inaad maalgashi aad samaysato cryptocurrency aad ku cusub tahay ama DCA aad samaysato, muuqaalkani waa muuqaalkaagi. sidoo kale waxaan rabaa inaan kuu sheego marka haddii suuqa aad ka walwalsan tahay, suuqani waxyaabahani inay dhacaan waa waxyaaba marka logical iska waaye, maahan wax marka cusub maahan. haddaba marka haddii aad suuqani aad ugu jirtay qaab investment ahaana, waxaan ku dhihi lahaa marka isdeji oo stresska iyo welwelka iska daa ayaan ku dhihi lahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Mudanaal iyo marweyn, kusoo dhawaada Garaadka Academy, kusoo dhawaada barashada cryptocurrency-ga gaar ahaan qaybteeda bilaashka ah oo aad ka daawanaysaan mar walbo si joogto ah Garaadka Academy YouTube channelkiisa iyo sidoo kale Facebook page-ka Garaadka Academy. Okay, maanta waxaan rabaa sida hordhac aad ku soo maqasheenba, waxaan rabaa inaan idin la wadaago 10 coin oo marka qaarkoodna ay cusub yihiin, qaarkoodna hore aan uga soo hadalnay. ayaan rabaa inaan kula wadaago muuqaalkani. haddaba haddii aad danaynayso inaad cryptocurrency ama suuqani inaad maalgashi aad ku samaysato, haddii aad rabto muuqaalkani waa muuqaalkaagi. sababtoo ah suuqa cryptocurrency-ga wuxuu bixinayaa fursad ah ama discount ah ama qiimo dhimis ayuu bixinayaa oo waliba waali ah oo 90% ku dhow ayuu bixinayaa. marka waa marka inaan ka faa'iideysano weeyaan, marka fursadaasi suuqani in siinayo inaan ka faa'iideysano weeyaan. marka qofkii lacag haysta ayaana ka faa'iideysan karaa, oo marka qofkii kale indhaha ayuu ka fiirinayaa oo marka kistiisa asiga ugu jirtay suuqa hore intaasi ayuu sugi doonaa marka insha Allah tacaala. haddaba marka haddii aad xogo lacag aad haysato weli ama aad ku cusub tahay suuqani wuxuu joogaa fursadii ugu fiicnayd abid ayuu joogaa marka, ama sanadkani 2025 ayuu joogaa haddii uusan hoos uga dhicinba. marka sababtoo waxaan arkaynaa coinska intooda badan waxay ku jiraan marka minus ay ku jiraan, weliba qaarkood kuwa yaryar marka waxay ku jiraan 50% minus iyo weliba in ka badan ay ku jiraan 50%. markaan leenahay coinkii $4 joogay wuxuu joogaa hadda $2 iyo bar ama $2 iyo 30 senti ama $2 ayuu joogaa. sidaa darteed kala bar ayuu marka coinkaasi marka uu soo daatay ay ka dhigan tahay. marka haddii aad ka faa'iideysato ka waran marka coin $4 joogay qof $4 ugu maalgashan tahay, haddii adigu $2 aad ku maalgashato ka waran, qofkaasi marka $4 uu soo gaaro kadib ayuu qofkaasi wuxuu rajaynayaa faa'iido inuu sameeyo, balse adigu coinka $2 ayaad ku iibsatay, $4 haddii uu ku gaaro already waxaad haysataa marka 1x ama 2x ayaad sidaasi aad ku haysataa. marka fursad waaye suuqa si haddii loo fiiriyana dadkii horey maalgashi ay u samaysteen ama sanadkani bilowgiisa ay samaysteen waxay ku jiraan khasaare xoog leh ayay ku jiraan. marka haddaba marka suuqa saad u jeediin waxaan joognaa crypto bubble-iska ayaan joognaa hadda. crypto bubble-iska markaan fiirino suuqa waa wada casaan waaye saad u jeediin, cake marka laga reebo oo 6% faa'iido uu sameeyay ayaad u jeediin marka 1 hour-kiisa. marka suuqa xaaladiisa ayaa sidan iska Avax ayaad u jeediin, Solana ayaad u jeediin -1.6 ay ku jirtaa, Gala ayaad u jeediin -2.3, Hejbar -1 waaye, Jasmy 1.5 waaye, XML 1.9 ayuu marayaa. marka coinska way farbadan yihiin. J-Link 1.5% oo khasaaraha aada 1.6 waaye, Floki 1.9 ayuu marayaa. marka lama soo koobi karo runtii suuqani. Jupiter 2.5.1 ayuu marayaa, Count 1 wuxuu marayaa marka 0.2 ayuu marayaa. marka way farbadan yihiin dhammaan coinska halkan ku jira. marka waxaan rabaa
casharkeenan maanta marka inaan sii gudagalno balse waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo intaanan casharka aan sii bilaabin haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelka inoo taageer oo subscribe-ta inoo saar haddii hore inaa la joogtay waad ku mahadsan tahay adiguna sidoo kale la wadaaga asxaabtaada walaalahaaga u baahan koorsadaani ama cilmigaani inay bartaan marka si ay naftoodii marka ay u horumariyaan ayaguna si lamid ah okay intaasi kadib waxaan rabaa inaan kula wadaago marka coinskani ugu muhiimsan oo aan marka maanta rabo inaan idinla wadaago suuqani weli rajo fiican ayuu leeyahay bull rankigii ma dhamaanin dadka qaar waxay isleeyihiin bull rankigii la sheegayay aaway 2025 ama waa uu dhammaaday oo kista aan soo aragnay oo November iyo December dhacayay waayo oo Bitcoin ama BTC ay ka gaartay halkaasi 108,000 ay gaaraysay miya ay leeyihiin weli suuqa bullish waaye maahan bearish maahan oo waxaan ula jeedaa waa suuqa weli waa buy waaye oo marka sell maahan ama suuqa kor ayuu u socdaa oo marka uptrend waaye maahan downtrend marka sidaas ay tahay marka qof walba waxaa laga rabaa inuu dulqaad muujiyo inuu sabir muujiyo inuu geesinimo iyo adkaysi uu muujiyo ayaa la rabaa sababtoo ah suuqani cid controlsha hab yaraatee ma jirto waa more volatile hore aan soo sheegnay cid xukuntana ma jirto oo rabitaankiisa uu ku shaqeynayo suuqani ma jiro sidaa darteed marka haddii adigu aad investment ahaan aad ugu jirto waxaan ku dhihi lahaa waqti qaado oo marka niyadda degso oo marka isku ridin marka stress iyo marka buuq iyo isku furin adigu okay coinka ugu hore aan rabo inaan idin la wadaago maantay waa coinka lagu magacaabo ADA waaye ADA waaye coinka ugu horeeyo ADA ama Cardano waaye si kale haddii aan u dhigno marka ADA waxay ka mid tahay marka coinska qeybaha hore ku jira waa kaalinta 8aad ay ku jirtaa Cardano haddii aan ku dhufano hadda waxay maraysaa Cardano saad u jeedin 0.70 ayay maraysaa Cardano haddii aan fiirino Cardano 1 yearkeeda haddii aan fiirino ama maximum ba haddii aan dhahno oo aan tagno qeybtani waxaad arkaysiin inay gaartay 2.97 inay gaartay aad arkaysiin oo ahayd marka 3 September 2021 marka Cardano qeybtaasi ayay martay ama ay gaadhay haddana waxay joogtaa 0.7 ay joogtaa marka Cardano waxay ka mid tahay coinska laga leeyahay dalka Mareykanka ay ka mid tahay welibana coinska inay dalka Mareykanka ay u noqdaan reserve-ga ay ka mid tahay oo lasoo qaaday lasoo magacaabay ay ka mid tahay marka sidaa darteeda Cardano weli fursad fiican ayay marka bixinaysaa haddii aad u jeedin 0.7 ay maraysaa -2.9% oo marka hoos u dhac ay ku jirtaa 24 hours-ka marka Cardano haddii adigu aad awoodo marka waad ka faa'iideysan kartaa oo marka haddii xoogoo lacag aad geliso 500 ama $1,000 ama 200 hadba qofba tabartiisa waaye maahan wax anigu aan ku go'aaminayo sidoo kalena maahan video marka la talin dhaqaale ah maahan oo waa information sharing oo kaliya waaye marka Cardano waad u jeedin qiimaheeda hadda waa qiimo aqoon ah waaye marka oo lagu maalgashan karo fursad fiicanna waa laga rajaynaya sanadkani Cardano okay coinka labaad haddii aan dhahno coinka labaad aan rabo inaan idin la wadaago waa meme coinska ayuu ka mid yahay waana coinka lagu magacaabo Dogecoin waaye Dogecoin kaalinta 9aad ayuu ku jiraa asiguna sidoo kale Doge wuxuu marayaa hadda waa 0.16 ayuu marayaa 2.9% ah ayuu ku jiraa marka okay maximumkiisa asiguna haddii aan fiirino marka Doge ilaa iyo meelaha uu gaaray haddii aan fiirino marka waa meelahani Doge marka meelahaas ayuu gaaray asiguna sidoo kale saad u jeedin ilaa iyo wuxuu sigay marka inuu gaaro 0.7 ayuu sigay Doge saad u jeedin marka asiguna Doge weli wuxuu marka bixinaya fursad fiican ayuu bixinaya 0.16 ayuu hadda maraya marka insha Allah taala Doge asiguna inkastoo uusan ahayn marka project sidaas u weyn uusan ahayn
haddana sidoo kale weli fursadda laga rajaynayo Doge waa marka haddii qofkii lacag haysta oo lacag geliya marka buurankigani wuxuu insha Allah taala uu ka heli doonaa marka lacag xoogoo marka fiican ayuu ka sameyn doonaa. Okay, haddii aan fiirino marka coinka labaad ama saddexaad haddii aan fiirino waa coinka lagu magacaabo Zoo ayaan fiirin doonaa siguna si lamid ah. Zoo wuxuu ku jira kaalinta 22aad ayuu ku jira rankiga. haddii aan fiirino Zoo asiguna wuxuu maraya hadda 2.26 wuxuu ku jira 7.2 minus ayuu ku jira. marka haddii aan fiirino asiguna Zoo meelahani waxaad u jeedin inuu gaaray $5 iyo 30 senti meelahaasi ayuu gaaray saad u jeedin. marka $5 ayuu gaaray haddana wuxuu maraya marka 2.26 waliba kala bar iyo jajab waaye marka qiimo dhac ku dhacay Zoo marka bilihii la soo dhaafay. marka Zoo asiguna wuxuu ka mid yahay coinska la saadaalinayo buurankigani inuu meel fiican u gaaro ilaa iyo uu gaaro waliba $10 ilaa $15 ilaa iyo $20 loo saadaalinayo weeyaan marka Zoo. Zoo hore aan uga soo hadalnay in badan inuu yahay ama ay isku tilmaamayaan inay yihiin the next Solana. marka Zoo asiguna wuxuu bixinayaa discount aad iyo aad u weyn ayuu bixinayaa boqolkiiba 50 iyo waliba ka badan boqolkiiba 60 discount ayuu sameynaya marka Zoo. marka isha ku hay haddii aadan weli aadan maalgashanin Zoo maalgashi waad ku sameysan kartaa. haddii aad ku cusubtahay suuqani cryptocurrency-gana waa fursadaadii weeyaan marka qofkaasi ayaa waliba fursadda ugu fiican helaya marka sababtoo ah qofkii hore usoo maalgashaday hadda already minus 60 ama 55 oo marka wuxuu ku jira khasaare marka lacag kale inuu ku daro marka qofkaasi way ku adagtahay balse haddii aad cusub tahay waa janskaagi waa fursadaadii waaye waad ka faa'iideysan kartaa Zoo marka waana fursad aad iyo aad u weyn waaye marka Zoo. Okay, midka inoo xiga waa Ethereum waaye. waxaan rabaa midka ugu dambeeya oo ugu xiisaha badan inaan ka dhigo midka ugu dambeeya. haddii ilaa iyo inta aad nala socotayna waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. waxaan rajaynayaa inaad marka information fiican aad ka heli doonto. coinka ugu dambeeyana waa coinka ugu xiisaha badan sidoo kalena ugu miisaanka culus waaye marka. Okay, coinkeena marka afaraad wuxuu noqonayaa siguna sidoo kale waa Ethereum. midkani keliya wuxuu marka maalgashi waxaa ku sameyn kara dadka xoogoo jeebkooda uu buuran yahay maahan qof walba marka inuu maalgashi uu ku sameysan karo maahan. sababtoo ah Ethereum waxaan u jeednaa in uu gaaray asiguna meelahani haddii aan fiirino all time high-giisa haddii aan fiirino Ethereum wuxuu gaaray asiguna si lamid ah 4,494 waaye haddii marka aan qaldanayn oo marka si saxa xogtaasi. Okay, waad u jeedin 4,600 ayuu hadda ina geeyey marka xoogoo inaad ku aadiso ayay kaaga baahan tahay qaybtaasi inaad ku aadiso ay kaaga baahan tahay markaas ayaad arkaysaa. marka mobilka ay aad ugu fiican tahay marka qaybtaasi marka la joogo hal mar ayaad ku taabanaysa kadibna si fiican ayaad arkaysaa. marka hadda waxaad u jeedin Ethereum 4,652 ayaad u jeedin inuu gaaray 14 November 2021. haddana wuxuu marayaa Ethereum waa $1,965 ayuu marayaa. marka waxaad u jeedin already kala bar iyo in ka badan waliba ayuu minus ku jira Ethereum asiguna waxaa la saadaalinayaa inuu gaari karo sanadkani ilaa iyo bisha December 2025 inuu gaari karo ilaa iyo $5,000 ilaa iyo $6,000 inuu gaari karo ayaa la saadaalinaya. ka waran marka haddii aad 1,900 aad ku iibsato hal xab ama laba xab ama saddex xab oo Ethereum ama 5 xab kadibna midkiiba uu ku gaaro marka 5,000 uu ku gaaro ka waran marka faa'iido aan caadi ahayn ayaad ka sameyn kartaa. qofkii lacag ilaahay seena oo marka ilaa iyo 50 xab ama 20 xab ama 100 xab uu ka iibsadana waaba meeshii ugu fiicneed weeyaan marka oo marka uu ku noqon lahaa qof taajir ah qofkaasi. Okay, Ethereum asiguna insha Allah taala waan ka socon doonaa oo discount-kaasi qofkii awooda ha ka faa'iideysto sababtoo ah qiimaha loo saadaalinayo Ethereum marka ma soo dhawa. sidoo kale waxaan rabaa coinka inoo xiga waa
Solana haddii aan fiirino asiguna oo aan ku dhufano waxaad u jeediin Solana price-kiisa inuu yahay price boqolkiiba 90 marka discount ku jira oo weliba qiimaha Solana maanta uu jooga uu yahay qiimo aad iyo aad marka u hooseeya oo weliba qiimo in lagu qoslo oo marka mudan waaya marka sababtoo Solana waxay gaadhay haddii aan fiirino meesha ugu sareysa ay gaartay Solana waxay ahayd ilaa iyo waxay gaartay 290 iyo above ay gaartay Solana 290 iyo above ay gaartay Solana 1 year ko kaliya haddii aan fiirino Solana halkan waxaad u jeedin 200 iyo waa 60 257 marka Solana waxay gaartay ilaa iyo 293 dollar ay gaadhay midaasi anaaba ku hubo haddana waxay maraysaa marka 126.73 ay maraysaa minus waxay ku jirtaa marka 2.9% ay ku jirtaa Solana marka waxay bixinaysaa discount aan caadi ahayn ay bixinaysaa marka Solana haddii aad ka iibsato hadda $1 oo kaliya haddii aad geliso hadda Solana waa marka lacag fiican waaye marka ama dhowr coins ayaad helaysaa ilaa iyo marka waxaad heli doontaa marka 8 coin iyo meelahaasi 7 ama 8 ama 8 iyo bar meelahaasi ay noqonaysaan qiyaasayo balse ma hubo waad xisaabi kartaa marka haddii aad hesho 10 xabo oo Solana ama 9 xabo ama 8 xabo oo Solana haddii aad hesho midiina ay ku gaarto ilaa iyo marka ay gaadho marka 500 ama 400 meesha ugu hooseysa ama 300 meesha ugu hooseysa meelahaasi ay gaadho ka waran Solana waxaa la saadaalinaa ilaa iyo 400 ilaa iyo 500 inay gaari karto sanadkan 2025 waan isla arki doonaa insha Allah taala haddii marka nafta iyo caafimaadka aan isla qabno sidaa darteed marka Solana haddii aad ku maalgashato $126 waa very important waay marka okay sidoo kale waxaan u gudbi doonaa coinkeena inoo xiga ayaan u gudbi doonaa oo aan rabo inaan idinla wadaago coinkani waa coin asiguna kamid ah coinankii hore aan uga soo hadlaynay oo waxaa lagu magacaabaa ICB ayaa lagu magacaabaa coinkani ICB waxaa lagu magacaabaa internet computer waaye haddii aan fiirino internet computer asiguna wuxuu marayaa 5.69 dollar ayuu marayaa sidoo kalena minus 2.0% ayuu ku jiraa maximum haddii aan dhahno marka halkan aan geyno waxaan arkaynaa inuu gaaray ICB May 9keeda 2021 inuu gaaray price gaaraya 461.65 ayuu gaaray maantana wuxuu joogaa $5 marka asiguna wuxuu kamid yahay coinska aadka iyo aadka marka dhaqaaq fiican looga rajaynayo sanadkan ama buurankigani marka ka waran haddii uu ku gaaro 300 uu ku gaaro ama 400 all time high-giisa uu marka gaaro ama all time high-giisa kala bar kamid haddii uu gaaro ilaa iyo marka 250 uu ku gaaro $5 uu kugu fadhiyay investmentgiisa ka waran waa marka amazing waaye fursad weyn waaye qofkii awooda oo suuqaani marka weli aanan maalgashi ku samaysan ama ku cusub ama qofkii DCA ku samaysan kara ama qofkii sigoo marka maalgashi ku jira weli si marka samayn kara awoodiisa leh inuu maalgashi ku samaysto ICB asiguna wuxuu kamid yahay coinska ugu muhiimsan okay waan socon doonaa sidoo kale coinkeena inoo xiga asiguna waxaan leenahay waa coinka lagu magacaabo Keta waa coin cusub coinkani Keta ayaa lagu magacaabaa qaybta iyo sirjiga ayaan ku qori doonaa Keta ayaan leenahay Keta haddii aan ku dhufano marka asiguna waxaan arki karnaa informationkiisa Keta haddii aan fiirino marka saad u jeediin 0.17 ayuu marayaa pricekiisa minus 3.5% ayuu ku jiraa sidoo kalena market capkiisa wuxuu marayaa hadda 67 milyan 950,074 market capkiisa waa uu hooseeya hadda xogo sidoo kalena maximum haddii aan dhahno Keta mar dhow ayaa la soo fasaxay Keta 18 March wuxuu gaaray wuxuu gaaray 18 ayuu gaaray ayaa lagu leeyahay 18 sidoo kale meelahaasi
haddii aan fiirino waa 20kii March waaye asiguna sidoo kale. marka Keita asiguna wuxuu ka mid yahay coinska cusub oo weliba rajo fiican laga leeyahay ayuu ka mid yahay. coinka xiga asiguna sidoo kale waa coin cusub waaye oo waxaa lagu magacaabaa coinkani Bubble Mabis. Bubble Mabis ayaa lagu magacaabaa. Bubble Mabis haddii aan ku dhufano asiguna oo aan aragno waxa uu maraya qiimihiisa 0.18 ayuu maraya 18.3 wuxuu ku jira oo minus ayuu ku jira. maximum kiisa haddii aan fiirino coinkani asiguna wuxuu gaaray 18 March 2025 0.28 ayuu gaaray. haddana wuxuu maraya 18 ayuu maraya. marka coinkani asiguna wuu cusub yahay. marka marketkiska aad ka heli karto haddii aan fiirino marka waxaa ka mid ah Bitget, Binance ayaa ka mid ah, Bybit ayaa ka mid ah. marka qeybahaas ayaa ka helaysa oo gadayo ku jira. marka waxyaabahaasi ayaad ka helaysaa marketka aad ka helayso. haddii aan ka socono coinkani asiguna weli rajo ayuu marka laga leeyahay inuu xoogo marka dhaqaaq fiican uu sameeyo. coinka inoo xiga waxaa lagu magacaabaa Bloom ayaa lagu magacaabaa. Bloom markaan dhahno kadib Bloom asiguna qaabkaasi waaye. haddii aan ku dhufano qiimihiisa 0.19 waaye way isku dhow yihiin saddexdani coin maadaama ay cusub yihiin qiimahooda. kadibna market capkiisana waxaad u jeediin 396,545,418 waaye. haddii aan fiirino marka Bloom asiguna meelaha ugu sareeya uu gaaray meelahaasi waaye meelaha ugu sareeya uu gaaray waa 0. almaraan kusoo laabto January 21/2021 waaye 0.20 ayuu gaaray ayaa lagu leeyahay meelaha ugu sareeya. marka coinkani asiguna waa cusub yahay. marketkiska aad ka helaysana waxaa ka mid ah Bybit ee ka mid ah, Bitget ee ka mid ah, HTX ee ka mid ah, Max ee ka mid ah, Gadayo ee ka mid ah, KuCoin ee ka mid ah, BitHub ee ka mid ah, BingX ayaa ka mid ah. dhammaan exchange-yadaasi ayaad ka helaysa ee lagu leeyahay. haddaba marka ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay coinkeena ugu dambeeya maanta oo aan rabo inaan idinla wadaago. coinkaasi oo ah Ripple XRP. Ripple XRP ayaan insha Allah taala aan idinla wadaagi doonaa. Ripple XRP ama XRP wuxuu marayaa asiguna haddii aan fiirino XRP inagay XRP kaalinta farada ayuu ku jira oo waa midkani. haddii aan ku dhufano marka XRP waxaan arkaynaa inuu marayo 2.39 ayuu maraya 3.8% ah ayuu ku jira oo marka hoos u dhac ayuu ku jira. XRP sanadkani waxyaabaha asiga uu qabtay really waa waxyaabo aad iyo aad marka u fiican waaye oo horumar usoo kordhiyay sumcadna usoo kordhiyay waaye. marka sababtoo ah XRP wuxuu samaystay stable coin ayuu samaystay. sidoo kale XRP wuxuu samaystay ETF ayuu samaystay oo loo ogolaaday. marka sidoo kalena weliba ETF-kiisa ugu horeeya oo aqbalaad rasmi ah oo laysan hela waxa uu ku helay wadanka marka Imaaraadka ayaa marka aqoonsatay oo siisay laysanka. dhanka iyo Mareykanka waa la aqbalay balse proof ayaa u dhiman oo weli laysanka lama siinin. XRP sidoo kale shalay wuxuu soo hiray kiiskii muddo 4 sano ku dhowaad socday ayuu soo hiray oo marka qaybta iyo wadanka Mareykanka lagu haystay oo qaybtani SEC lagu magacaabo haystay. Security Exchange Commission ka haystay. midkii madka hadda jooga ka horeeyay ayaana haystay qofkaasi ama dadkani ama shirkadani haystay. marka kiiskaasina asiguna waa la soo gabagabeeyay oo XRP marka kiiskaasi waa laga marka laabay oo waa laga xiray galkiisa.
kiiskaasi wuxuu ka qotomay XRB inay sameysay maalgashi oo marka hal ilaa iyo $1,000,000 ay sameysay oo marka waxaa lagu eeday maalgashigaasi ay sameysay marka xogtiisa iyo dadka maalgashigaasi loo sameeyay ma diiwaan galsanayn waxyaabahaasi ayaa lagu haystay. alaayta xaal kiiskaasi waa la soo gebagabeeyey oo marka Segway soo fasaxday XRB dembigaasi marka sidaa darteed XRB wuxuu sameeyey sanadkani marka waxyaabo aad iyo aad u weyn ayuu sameeyey, horumar la taaban karo oo muuqda ayuu sameeyey XRB. sidaa darteed waxaa la leeyahay XRB wuxuu gaari karaa ilaa iyo $6 ilaa iyo $5 meesha ugu hooseysa $6 ilaa iyo $8 ilaa iyo $10. dadka qaar oo boonbooninaya waxay baleeyihiin ilaa iyo $100 balse midaasi ma dhici doonto saan u maleynayo mana soo dhowa ama sanadkani inay halkaasi u gaaro suurtagal maahan, balse ilaa iyo $5 ilaa iyo $10 inta u dhaxeysa XRB inuu gaari karo waa macquul waaye. marka haddaba marka XRB hadda wuxuu joogaa 2.39 ayuu joogaa. haddii aan fiirino marka meeshiisa ugu sareysa isiguna waa 6 January 2018 wuxuu gaaray 3.40 ayuu gaaray ayaa lagu leeyahay. marka haddii hadda uu marayo marka 2.38 ayuu maraya, xitaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa laga yaabaa inuu meelahani marka meel ka hooseysa inuu gaaray ayaa laga yaabaa. marka haddaba marka insha Allah taala waxaan rabaa muuqaalkani maantay inaan halkani aan kusoo afmeero, oo haddii aad nala socotay ilaa iyo halkani waxaan ku leeyahay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. waxaad tahay qof marka mustaqbalkiisa raba inuu wanaajiyo, inuu qurxiyo ayaa tahay ayaan ku leeyahay marka, ama dhammaantiinaba ayaa tihiin. sidaa darteeda mar kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo, haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelka inoo taageer, subscribe inoo saar. haddii aad horeyna la joogtay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. waa inoocio muuqaalkani ka xiisa badan. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.